qisa waxaa dhacday nin dadkii hore ka mid ah ayaa caruur gabar uu dhalay oo yar buu guriga uga tegay. gurigana waxaa u waardiyeeyey waa nin beeraley ah, eygaasaa xaaris oo ah wehel guriga u waardiyeeyey. marka safar wuxuu aaday ugaarsi u aaday, ugaar buu doontay. isagoo hantin sameyna ugaar doontay oo galabkii soo noqday ayuu wuxuu maqlay eygii oo qaylinaya. meesha waa meel cidla, waa guri cidla. markuu dabcan inuu soo galo ayuu wuxuu arkay eygii oo dhiig leh, oo ilkihii dhiig ka buuxo, oo gacmihii dhiig, lugihii dhiig ku leh, oo albaabkii taagan oo qaylinayo xanaaqsan. subxaan allah. idan eygii gabadhii wuu cunay, ninkii wuu xanaaqay, wuxuu sameeyuu garan waayey. eygii wuu hal mar qorigu watay ayuu xabad wadnaha kaga dhuftay. eygii wuu raftay, naftii baa ka baxday. ninkii asagoo wareersan oo meel jooga aan garanaynin ayuu wuxuu is yiri guriga intaad gashid bal gabadhii lafaheedii iyo raadii eyga balaayo qabuhu cunyi. markuu gurigii galay ayaa waxaa ka hor yimid yey intay guriga soo gashay oo uu eygu kala gooyey oo dhiiggeeda ku rafatay, ku baktiday, iyo gabadhiisa aan xabadi taabanin, waxba aan ku dhicin. waxay qisadaasu daliil u tahay ikhwaani, waxa aada hubsanin dulmi buu ku geliya. hadda meeqee qof baa u dhimatay tuhmo iyo waxaan la hubin. meeqee qof baa u kala go-ay, dad walaalo ah oo isjeclaa u kala go-ay tuhmo. meeqee reer u burburay tuhmo. meeqee caruur u horseeday waalidkood dhibaato. waxaan ku leeyahay akhi lmuslim wa ukhti lmuslima, caruurtaada jacaylka